sawiradan idin muuqda waa guryo ka samaysan jiingada kuwaasi oo loo nashqadeeyay qaab farshaxamaysan. Nashqadda guryahan ayaa soo jiidatay inta badan bulshada Soomaalida iyagoona u arkaa in injineerka sameeyay guryahan uu soo bandhigay xirfad soo jiidasho leh. Haddaba waxaan waraysi khadka telefoonka la yeeshay injineer Cabdinaasir Cabdiqaadir oo ku sugan magaalada Baydhabo oo isagu ah injineer ka sameeyay nashqadani isagoo ku sugan magaalada Baydhabo. injineerka ayaa dhismayaal noocana waxa uu ka hirgeliyay deegaanka uu ku nool yahay. Ugu horreyn waxaan weydiiyey sida ay ku timi nashqadan cusub markii uu horeysay. awal sidan waxaan ku keenay horta dadka qaar sida fasilitiisa sabab ma ahayn ma awoodan qarasha ku baxa marka anagoo injineerada oo kuwa bulshada dhisa anagoo farsamo waxaa jiro naqshad guriga u dhisaan oo bulshada u dhisaan anaga waxaan ku sameeyay jiingada qofka marka qarashka bulshada haduu lagu sheego oo tiradiisa lacag ku bixin loo sheego oo isfaado weeyo markaas uu leeyahay marka aniga gurigan bulshada lacag ma gaartay waxaan rabaa guriga oo aan ka doortay oo fiidiya ka dhiganayo Way marka waxaan leenahay anaga naqshadii adiga ka qancisa guriga bulshada oo naqshad ma ka haysaa naqshadii bulshada oo si markuu keeno anigu bedelo waxaan ka dhignay jingadan ka dhignay marka nashqada uu qofku rabay inuu gurigiisa ka dhisto ama bulkeeti ah ayaad ugu bedeshaa jingad ugu bedelnaa hadduu rabo musqusha gudaha iyo banaanka hadduu barandada iyo argala naqshad oo argala waxay ku socdaa shil iyo waxaa la yiraahdaa labadaas nooc mid doono oo haddii uu rabo laga dhigaa waaya inteed waday inaad nashqadan jingada iyadoo aan ognahay in dadka inta badan jingadaha dhistaa ay si isku mid ah u dhistaan inaad nashqada u bedeshaan oo nashqad u gurigii bulkeetka ka dhisan lahaa u eeg inaad keentaan intee leeg ba waday walaal waxaan waday hal shir macallin Soomaali madaxweyne markuu ka ahaa ka hor sheegay shabaabka Soomaalida waa gaaraan Baydhabo laba sano Baydhabo ay ka bilaaway hadda laba sano ilaa iyo 4 sano markaa la soo darinayo farmaajo hadda ay jecelahay inay tahay sagaal sano iyo 10 sano u dhahay taasoo wada nashqadan dadka markaad u soo bandhigto ee arkaan sidee u arkaan والله أجل كذا جرى يرسل على صوت فرق لكذا جرى يرسل على كذا وعجل أو يرسل على سبيل مو والله يرسل عن لكن أنا قال ليل والفوق ورجوا عن شيء وايو وطن كذا كان تفضل بدن جوا كذا وهاي كذا وعي يعني كذا فخا وصل على كذا وعي لين إلى وزير ولا يرسل عن ذلك على كذا وعي مركب وطن كيان التربية هي كذا نقصد مركب كذا فرق شيء كذا آدي يعني وكان هو دور dad badan oo magaalada Baydhabo ka jooga weligeedna aniga aqoon isku leeyahay ku baranay oo maqsad ay u yarta qorbi oo Facebook aniga soo dhigtay oo kan ciidda ka soo galman ugu waa tahay nashqadan sideed bulshadan ku jecel ay aragtay nashqada noocan ah sideed u gaarsiin karaysaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan wallahi waxaan jecelahay farsamada aniga waa asal ku shaqeysto waa farsamada haweenka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed meel wada joogaan sabarna iyo cilmiga waxaan rabaa inaan ugu caawiyo oo farsamada jecelahay meel wada joogaan hadday ugu hadda waxaan jecelahay guriga insha Allah hadii waxaan rabaa inaan soo aado وسمرات iyo quracada cadaadad saxda meel laga soo wacay qalabkiina aan diyaarsanayna markaan diyaarsan rabo inay leeyihiin hatta waxa la amray ku gaaray wada ugu Baydhabo ee darwalka badiyan ee ku keenaadii aboo wareegsan ku taasacantay ku soo siin aniga oo waqo intii uu badan ku soo waqtigaas ama soo sajiraan marka inaan waan jecelahay laakiin ma waa Soomaalida kana ku dhaafay injineer Cabdinaasir inta badan guryaha marka la dhisanayo sidaad sheegtay dadku mararka qaar ma awoodaan bal waxaad ka warantaa guriga quruxda badan leh jingada ka samaysan naqshada qofku doonayo aad u sameynaysa bal qiimaha ugu weyn ee ku kici kara iyo qiimaha ugu yar ee macquulka ah gurigaas qofku uu ku dhisan karo isagoo qanaacadiisa iyo quruxda gurigaba eegaya wallahi qarashka wada guriga waxa social markay wal qabatay lacag baldarasa marka guriga qaar oo lacagtooda saaqo barantay iyo masuuliyadda iyo wadirka laga ku jiro oo qorta laga saarayo oo qarashkiisa oo 3,500 ilaa 4,000 ayaa jira
وعاد يحكم شنطة الجارة كده فوق مركو تبران وتوصل لجا جدا مطعم في أصل دور كان أراه وجينا كان مركز هنا أتوقع سبب يعني فاهم أبغى أقول دور مركز مثلا waa tahay adigu ma si gaarad u shaqaysata mise shirkad gaara baad leedahay ما هو شكلنا كفر أحمد سماعي تحيي وطمط هو سواء بس عصو اسمع إنه بعدان معي أو ما عن صبر مركز خذوا عاد كتر التنمية شكلي خذوا عليه سواء عاد كل رمضان الله كان من نحن وعشرة أرسمت المتلاوة فاكر صافة كتر التنمية شكله إنه حاول صور bal ka waran xaaladda deegaanka kugu xeeran iyo shaqadaadu siday u socoto saameyn mararka qaar ma kugu yeelataa deegaanadan kale xidhan iyo waxyaabahan والله فاهمان وتردون هي الزوايا عليه وحنا كفر سميقانا وعن جعلها إلى الوضوء لأنه وحاكم فينا مثلا جعلها waad mahadsantahay ugu dambeyn waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo dad badan baa ka helay naqshqadan aada soo bandhigtay maxaa dadkaas iyo ummadda Soomaaliyeed baad halkan fariin uga daraysa farsamada qofka Soomaaliyeed oo farsamada leh waxa la rabaa horta maadintu waa la caawiyo caawitaanka waxay tahay qofka oo farsamada waxa si walba ku shaqeysta waxaan maraba markii maadintu qofka Soomaaliyeed waxa lagu baahan yahay wadakaaga iyo dadkaaga inaad wax lagu qabato waayo si ficil ah qalbigan hadda maanta daladan ku magaalada adiga dhacay waxaan leeyahay markaas waxa dhisanaa iyo kuwa waxa dhisanaa waxaan leeyahay dadka أنا أقول فيها تكون حدثنا عن عملية تكون حدثنا حقولين حقيقة كلها مناعة مع عملية حقولة النظام aad baad u mahadsan tahay injineer cabdinaasir waa kaga mahad celinaa waqtigaaga qaaliga aad noo hurtay aad baad mahadsantahay intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa waraysigan haddii aad u baahan tahay barnaamijyo iyo waraysiyo kale oo xiise leh ku xidhnow boggeena Facebook